dowladda Puntland ayaa Yacquub Siyaad oo kamid ah dhalinyarada baraha bulshada caanka ka ku eedeysay inuu afhayeen toos u yahay kooxda Daesh ku dhuumaaleysata buuraleyda gobolka bari ee Puntland. ninkaas Yacquub Siyaad wuxuu caadeystay oo ilaa 8 muuqaal oo u baahiyay intii dagaalkaasi bilowday uu ku soo bandhigay inuu toos u garab taagan yahay ururka argagixisada Daesh. waa ku soo dhaweynaya marka hore wax ka codsanaya inaan muuqaalkan la igi saarto sidoo kale YouTube-keena ku soo biirto oo subscribe dhahdo gambalelkana furato si ay ku soo gaaraanin muuqaalada maalinlaha ayaan halkan ku soo gudbino. haddii aan ku bilaabo xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee 5 gobol ee Puntland ayaa Yacquub Siyaad oo kamid ah dhalinyarada baraha bulshada caanka ka ku eedeysay inuu afhayeen toos u yahay kooxda Daesh ku dhuumaaleysanaysa buuraleyda gobolka bari ee Puntland. xeer ilaaliyaha maxkamadda ayaa sheegay in Yacquub Siyaad uu YouTube-kiisa ama barihiisa bulshada soo dhigay ilaa 8 muuqaal oo uu ku taageerayo kooxda Daesh isla markaasna uu gaf ugu geysanayo ciidamada difaaca Puntland beelaha daga Puntland iyo sidoo kale madaxda dowladda Puntland. sidoo kale xeer ilaaliyaha waxa uu sheegay in Yacquub Siyaad uu ka been sheegay guulaha ay gaareen ciidamada difaaca Puntland ay ka gaareen kooxda Daesh ku dhuumaaleysanaysa buuraleyda gobolka bari. xeer ilaaliyaha waxa uu sheegay in Yacquub Siyaad uu ka been sheegay tirada ciidanka ku dhintay dagaalka ee Puntland kula jirto kooxaha Daesh. waxa uu sheegay in tirada dhimashada uu buunbuuniyay oo markaas sheegay in 100 askari ay Puntland kaga dhinteen dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh. xeer ilaaliyaha waxa uu sheegay in shacabku inkastoo uu yiri xeer ilaaliyuhu shacabka reer Puntland ay war sax ay ka hayaanin mar walbana ay ka heli karaanin page-ka dowladda sida TV-ga iyo sidoo kale page-ka howlgalka ay wararka saxda ah ka heli karaanin haddana waxa uu sheegay in ay dad reer Puntland oo badan oo Yacquub Siyaad ku xiran ay jiraanin isla markaasna ay taasi ku noqon karto niyad jab iyo sidoo kale moralkooda oo hoos noqda. sidoo kale xeer ilaaliyaha waxa uu sheegay in Yacquub Siyaad uu soo qaatay muuqaal hore oo kooxda Daesh ah oo ciidamada Soomaaliyeed qabtay isla markaasna mindi qoorta kaga haya uu ku sheegay Yacquub Siyaad inay yihiin ciidamada difaaca Puntland ee hadda dagaalka kula jira kooxaha Daesh. taasna waxa uu sheegay xeer ilaaliyuhu in ay tahay been abuur uu ka sameysanayo ciidamada difaaca Puntland. waxa uu sheegay in waxyaabaha uu sheegayo oo dhan lagala xisaabtamayo maxkamadda uu xeer ilaaliyuhu u gudbiyay. waxa uu maxkamadda ka codsaday in ninkaas tallaabo sharci laga qaado. Yacquub Siyaad wuxuu Facebook soo dhigay hadda ka hor 2016 markii ururka Daesh ay qabsan jireen magaalada Qandala 3 askari oo ay nimankaasu jidka ka qabteen iyagoo safar ah. wuxuuna ciidamada iyo dadka u sheegay in ciidamadaas maalintii dharjaan laga qabtay shalay la bireeyay suu isagu sheegayo. kan saddexaad isaguna waa saddexda nin wey saddexda ninba waa la bireeyay mindida dhigta dhiigga loo diray saakana la bireeyay laakiin waxa lagu qabtay dagaalkii maalintii uu dhacay kaligood ma aha rag kale oo maxaabiis oo far badan bay hayaan. taasoo runtii dad shacab oo badan oo aan awal xog tahayn is weydiiyeen meelo badan anagana la soo la yiri ma ciidamada jira la qabtay. madaxda guddiga garsoorayaal qofka isagoo og xaqiiqda oo dowladda Puntland inay shacabkeeda iyo ciidankeedu dagaalkaas xaq u dirirka ay ku jiraan qofka ka hor yimi qofka propaganda been qofku wixii jira inuu sheego ma diidanin waana wax garab u leeyahay haddii ciidanka la laayo in la sheego oo uu sheego wax lagu eedeynayo ama dambi aan uga dhigayno ma sababtoo xaqiiqda jirta dadku inay xaqiiqda ka hadlaan waxa la diidan yahay ma laakiin waxa la diidan yahay buunbuuninta waxaan jirin sheegidda waxaan jirin iyo kor u qaadista propagandada ee leeyahay argagixisadu. sidoo kale niyad jebinta ciidanka iyo shacabka way waxaan u diidanahay Yacquub Siyaad. gudoomiyaha maxkamadda 5 gobol oo isaga loo gudbiyay eedan ka dhanka ah Yacquub Siyaad ayaa waxa uu ka codsaday hay'adda nabad sugidda Puntland in ay Yacquub Siyaad soo qabato ayna la xiriirto isla markaasna cid kasta oo ka caawin karta in la soo qabto Yacquub Siyaad isla markaasna dalka la keeno oo si loogu maxkamadeeyo. waxa uu gudoomiyuhu sheegay in Interpolka iyo kale hay'adaha kale oo caalamiga ah in ay hay'adda sirdoonka ay kaashadaan isla markaasna Yacquub Siyaad ay soo qabtaanin si dalka loogu maxkamadeeyo. sidoo kale qareenadii goobta ka joogay Yacquub Siyaad ama goobjoogka u ahaa
ayaa maxkamaddu waxay amar ku siisay in muddo 7 bari ah ay haystaanin ayna keensadaanin waxyaabihii ay isku difaaci lahaayeen haddii ay keensan waayaanna tallaabo sharciya ay qaadi doonto maxkamadda iyo sidoo kale hay-adaha kale ee amniga ee dowladda Puntland. waxay maxkamaddu go'aamisay 2 qodob oo kala ah qodobka hore in hay'adda bisa ay la xiriirdo cid kasta oo ay keeni karta eedaysanayaashaas ahaado hay'ad Interpol iyo xiriirada caalamiga ah inay keenaan si dalka loo keeno oo loogu maxkamadeeyo iyaguna isu difaacaan qareennada oo codsaday in dib loogu dhigo si ay war uga helaan eedaysanayaashaasna waxaan iyagana faraynaa inay 7 casho gudahood wixii macluumaad oo ka dhiban ay maxkamaddu ku hor keenaan maxkamadduna way noo xidhan tahay